dalkan waxaa xoreysay sanan baa xoreysay raggii soo halgamay baad ahaydeen adigii wasiiru daakhilgaagu maxamed kaahin waxaa laydinka filayaa inaad dadkan si wanaagsan aad u maamushaan oo aad ku dadaashaan in waddankani deganaado waajibaadkiisa iyana ka soo baxo oo wixii sharciga muxuu sidiisa loo raaco wixii aan sharci ahayn laga daayo baarlamaankeenu waqtigii wuu dhammaaday waa 15 sannadood 5 sannadood unbaana loo dhaariyey kolkaa wax sharci oo la yidhaahdo baarlamankaa waxaa ansixiyey iyo muu ansixin ma jira isagaaban sharci ahayn taasi waa meelka dhac sida runta caqliga muxuu ahaa saliimka iyo ummadaba waa meelka dhac bay ku tahay waayo baarlamanku 15 sannadood fadhiyey 5 sannadood loo codeeyey ma aha wax la qaadan karo kow waxa kale oo jira guurtidii waxaa kuwii la doortay berigii la magacaabay way dhammaadeen malaha 5 iyo waxbaa ka nool qaarkoodna xanuunsanayaanba kolka dalkii halkaa wuu ka jabay wax weyn baa inaga dhacay baarlamankii labada goloba kolkaad isku darto niman muxuu ahaa xilkoodii ka soo bixi waayey oo aan sharcina ahayn weeyaan kolka runta loo noqdo waxa soo hadhay xukuumaddii iyo baarlamanku waxay heshiis ku gaadheen muddo kordhin wax la yidhaah ayaa heshiis lagu gaadhay kaamaanaan filayn adiguna inaad muxuu ahaa muddo kordhin inaad muxuu ahaa maanta aad gasho kaamaanaan filayn kana daa waxaanu leenahay muddo la kordhiyo cid raalli ka ah oo ummaddani ma jirto adna ka daa wakhtigii ku qabo hadday kuu soo roowado bilii 2 kugu dhaafto waxa weeyaan waa wax muxuu ahaa suuragala laakiin intaasoo sannadood baynu muddo kordhinu ku jiraynaa oo wakhtigii ina riyaalo laga soo bilaabo ilaa maanta 10kii bay kaga dhammayd muxuu ahaa baarlamankan maanta jooga kolkaa wax dib loogu kordhiyaa madaxweyne oo la aqbali karaa meesha ma yaallo ka daa ummadda dhibaatada ka daaya ummadda dhibaatada waxa weeyaan sharciga raaca dad hagaagsan ha la doorto kuwan xilkoodii way ka soo bixi waayeen kolkaa in lagu celceliyo maaha kolkaa doorashadu waa inayna dib u dhicin taasi waa mid waxaa kale oo jira xisbiyada mucaaridka ah dee waa inay tala ka dhaxaysaa dadkii iyo xisbiyadii iyo wixii tala kama dhaxayso waddani xitaa madaxweyne ma yidhaa wuxuu yidhaahdaa muusuu yidhaahdaa dee iyana dow maahee waa madaxweynihii dalka ixtiraam baa la isku leeyahay waa inaad ka soo degtaa halkana taagan tahay ee doorashadii haddaan waayey wax walba ha xumaadeen waa wax aan loo baahnayn sida runtiya kolkaa madaxweynaha mansabka inaad muxuu ahaa saa u adrees garayso ayaa laga rabaa kolkay arrimahan oo kale yimaadaanna in tala guud oo laysku ogyahay oo xisbiyada iyo dadweynaha iyo wixii isku fikradihii ay meel ka wada galaan baa muxuu ahaa loo baahan yahay kolkaa madaxweyne dulqaad baa laydinka baahan yahay nin inanta waaba la iska dhaafi karaaye nin ha la bedelo in wax dalku intaa dhibaatadaa u galo ma aha madaxweyne waa arrin muxuu ahaa ka aan habboonayn in intaasoo werwaray iyo intaasoo dhibaatihii uu dadkii ku beermo nin qura oo muxuu ahaa tio dad badanna muxuu ahaa la haysto oo ka fulin karaa arrimahaas kolka in la isu muuqdaa ma fiicna sida iminka waddaniya ka muuqata muxuu ahaa xukuumaddii waa isu muuqasho dulqaad baa laydinka rabaa waxa weeyaan waad u dhaawacantay maxamed kaahin wuu u dhaawacmay madaxdii baad ahaydeen muxuu ahaa dalkan hogaaminaysay oo muxuu ahaa xorriyaddiisii muxuu ahaa soo gaadhsiisay dee burburkeedana ha ku degdegina sidana duudaan waa burbure ina ka daaye kolkaa waxaan odhan lahaa kaga baxayaa ilaahay haydu waafajiyo dariiqa toosan ina wada ina hogaamiya oo murahan yar ee qofka iyo ku saabsan muxuu ahaa iyo dalkii dee isuma dhigmaan arrintu kolkaa madaxweyne dulqaadkaa lagaa rabaa waxtar baa lagaa rabaa waxa weeyaan waa la qaybsamay maanta waxaa loo qaybsamay dad wax haysta oo daara dhisanaya iyo dad aan dab loo shidayn kaa daaraha dhisanaya lacag lamaynaan soo gelin dalka markaynu dalka soo gallay caydh baynu ahayn xagguu ka keenay baa isweydiintu tahay waxa weeyaan wixii ummadda lagu maamuli lahaa ee dalka lagu horumarin lahaa ee muxuu ahaa dadkan saboolka ah
wax loogu qaban lahaa ayaa daara laga dhisay wuxuu saddexdii nool labadii dhintay allah u naxariisto saddexda madaxweyne ee nool mid walba xilkaasi uu ka gaabiyey waxa weeyaan in la soo muxuu ahaa aad u soo noqotaan arrintii oo muxuu ahaa dalkii lagu dhaqaa doorasho waa loo baahan yahay meel diyaar lama aha laydinka aqbali maayo intaasoo sannadood ayaan la diyaar garoobin cidina idinka aqbali mayso kolkaa madaxweyne waxaan u odhan lahaa aynu dadkiina in baahan iyo in dherigtay baa loo qaybsan yahay taasina inama dhaqdee ka daaya waxaa kaloo jira iminka dhulkan laysku haysaysto niman baa waraaqa u jaray local governmentka waraaqa siiye qaarkood way u dhammaystireen wixii sharci ahaa lacagtii baa laga qaaday saasay ahayd arrintu kolkaa kiina wuu joogaa kii miskiinka ahaana waxaa laga duminayaa muxuuha cooshadii uu ka dhistay meeshii taasina waa qallooc waxay ahayd in jeelka lagu guro nimankaa waxa dhul ayna hubin waraaqaha u sameeyey in iyagu jeelka galaan bay ahayd nimankan xidhan ee maanta xisbiga ka xidhan dee xorriyatul qowlkii baa jiree iyagana waxaan qabaa in la sii daayo oo dulqaad la sameeyo oo xorriyatul qowlku uu inoo furaado xaalad adag baynu horta runta maraynaa dalkeenna waxaad mooddaa nidaamkii siyaasiga ah ee aynu haynay waddadiisii inay soo xidhmaysaad mooddaa sidaa odayaashii iga horreeyey sheegeen in alle intii la dooran jiray ee codka ummadda ku iman jirtay meesha maanta kursiga ku fuli jiray taa madaxweynaha mooyaane mid keliya oo mandate yani intii dadku uu siiyey dastuurku uu siiyey meesha ku fadhidaa ma jirto axsaabta waxay ku guulaysteen inay sameeyaan muddada doorashooyinkeedii muddadoodii inay qabtaan xeerarkii lagu bedeli lahaa guurtida boo doorashooyinkan maalin walba dib u dhacaya in wax laga qabtaa bay ahayd waxaad aragtaa axsaabta qudhoodii gudahoodii baa dimuqraadiyadeed ka jirin oo ognahay oo nina xisbigiisa looguma tegi karo nin walba xisbigiisa isagaa leh xaaladdaa adag baynu ku jiraa waxaynu ognahay bariga waxaa ka taagan galbeedkii murankan iminka siyaasigaana ka jira waxaanu maraynaa marxalad aad adag taasi mowqif baanu ka leenahay gaara dhaqsano dadkaanu ugu soo bandhigaynaa halkaanu taaganay waxa weeye taasi way xidhan waddadaasi way xidhantay aynu ku socnay siyaasiga ahayd ee saddexda xisbi ahayd way xidhantay xaggii looga guriya hala isweydiiyo taasi talaanu ka ahayn wixii annaga nala noqoto waanu soo gudbin doonaa haddii la idhaa waqti kasta taa markaan intaan kaga baxo waxaanu soo noqonayaa xalayto waxaanan kol laba filaynin baan t v baan daawaday baad walba baan daawan jirin t vyadii xalayto xuyuga magarmaaye waxay soo kiciyey maanta waxa weeye waxaan dhegaystay taliyaha cusub ee ciidamada booliska somalilan loo dhiibay oo t v ka hadlayo shir sharaad qabtay runtii markuu arkay siduu u hadlayay tirtirfadku tirtirfanayey markaan arkay waxaan tirtiro xaggeed joogtaa wuxuu yidhi mudaharaad lama ogolaa sharcigaan ogolayn la yaabi maayo dee sharciga uu ku cusubiyo booliiska iyo sharcigiisa mu akhriyin iyo mudaharaadku wax loo badii loo maro mu akhrinin military buu ahaa sharta la soo qabtoo la keenay waxyaabaha dhibaatooyinkay jireen institution dhisma aynaan ogolayn institution walba dadkii garanayoo joogaynu cid kale keenayna kii joogaynu agaasimayaasha had iyo goor wasaaradda ay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha aynu mar wada bedelaa ilaa wasiir daaxaadkii baynu ka dhignay political oo aan habboonayn waayo siduu u dhaadanayey ulaha lama qaban karo lama iman maayo annagaa qabanayna waan aad iyo aad baan ula yaabay waxaa kaloo la yaabay waxaa laygu yidhi laba nin baa la xidhay ninkii la xidhay xoghayihii afhayeenkii xisbiga waddani waxaa soo booqday xoghayihii xisbiga kiina waa lagu daray taana waa la sii yaabay waxaa kaloo maqlay nin maalin dhoweyta hadlay ayaa xalayta gurigiisa looga togo isna waa la soo xidhay oo erey yidhi nala meeraysan ila meel noo wad waxaan malaynayaa waxaanu la yaabay oo kale t v-ga iyo intaa wareen maqlay iyadoo labada nin ee xukume ee meesha fadhiya eenu saaxiibaday ah madaxweynaha maxamed muuse biixi cabdi iyo maxamed kaahin axmed waa saaxiibaday waa raggaan jihaadka soo wada galnay waxaan moodayey waxaynu u soo dagaalanay in waxaan ka duwanaa waxaan moodayey inaynu waxaynu u soo dagaalanay aanay ahayn waxaynu maraynaa kabtaan kufay ku qosle ayaa lagu xidhi jiray maxamed saad baa ku xidhi jiray erey baa erey yidhi inaynagu xidhnaa eebaynu midda kale saaxiibayaal mucaarad baynu hayn weligeenba
ilaa maalintan SNM isugu mucaarad baynu ahay qolo tiri hadday tiri qolo waxaanu shirkay baan xisbigaygu dhexdiisa iyo hortiisa ku qabanaynaa waxaan inta alaamka intaa leeg iyo fulinimada inta leeg hortiisa kama filin iyo baqaayta waa maxay baqaayta leeg midda kale لا تنهي عن خلق وتأتي مثله فعال عليك إذا فعلت عظيم واحد أدوق السمين شرتي عد أما أتسميسو عد إن تكون هذا سواء فرح إنك مظاهرات أو كلمة الناس بيجي واحد بدهم يسمين شري ما أنت واحد معنا إلا ريال إلا عقال وإنك بورا قال شري وإنك أقل يسكو حيل شري وإنك الشان يضغط الحين شري ما أنت محرع dhangeed baan kaaga soo saariyay fadhii maysid taariikhdii baad eegaysay eega YouTube-da dadku ku waxa eega uu inagu qostaya waxa lagu yiri nin ahaa bergii Harun Rashid waqtigiisii inaan sheekada aad u hayn baa laga yaabaa raaliha laga hadla laakiin anu waan mutahinaya ayaa qolo barnaamij la ilaa ayuu munaasibtii waaweynado dhan ku tahay Harun Rashid oo ay kala qoran yihiin dabeedna arrin markaa adkaa oo boqorku aanu qaadanaynin oo aqalka galaangalkiisa faradhiirana ayaa nin madaxa weyn lagu sheegay dhowr nin oo barnaamijkadiina waxbaa lagu sheegay sheekh suudaanka ceeb ku ah dabeedna reerka barnaamijkada ka mid ahaaba intuu kacay wuxuu yidhi lastu ana min albarnaamijka wala albarnaamijkatu minni imika waxaan isweydiinayaa waa nimankaa saaxiib ahaydeen jabhaddii baa wada ahaydeen calan casbaa wada ahaydeen nimankii dalkan rogay baa ahaydeen war waxa uu soo wadeen waxaan ahaa umbo xasan saaxiib ku ahaydeen talow maxaa waxaan idhahdaa lastu ma ana min SNM waxaan soo xidhay talow lastu ma ana min calan cas labada talow ima calan cas ma ka baxay maanta saaxiib yar waxa leeyahay ku soo noqdo idinka yeeli maayo saaxiibkay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi ilaa maalintii noogeen mucaarad baan nahay maanta in baan mucaarad ku xidhaynaa kaama yeelayo dadkuna kaama yeelayo laynoo gabana fadhiyo waxa dadku naga filay markaynu dalka duminayno dadka leeynay inaynu waxaan ka duwan samayno 30 sanadood baynu fadhinaa labadii waa ayaan daro in dadku yiraahdo labadii SNM gooray ay qabatay waxay ka liidataa labadii hore ka qabatay waa ayaan daro in dadku yiraahdo SNM odaygiisii ayuu loo dhaafay madaxweyne Muuse laguma dhaafayo adiga maxamed kaina loo dhaaf maayo qof baa hadayaan xidhnay idinka yeelaysaa ma jirto ilaahna idinka yeelimayno idinka yeelimayno dib uga noqda arrinta odaynimo ku wada deganaansho ku wada wanaag waxa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan buulinin wanaag waxa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan waxaad walaal ku weydo wiil waalidkii loo dhan jiray dadka waxdigiisii waa ka ina rag walaal wuxuu ku dhaamaan waay buul waxaan ku sameeyay ma jiro buul rag ina rag waxa ku wadi karteed madax ku noqon kartaa waa haween walaal iyo soo dhaweyn ma aha hadaynu markii hore qalqaal ahayn inuu qalqaal ahayn kursi baan fadhinaa kawin qalqaalnimada madaxweyne carooda oday carooda wadul qaadan waay taariikhdu kuma jirto waxaan hore ka sheekay ku noqon maaye xuseen xasan iyo suudaantii wixii kala maray markuu isagoo shirka dhexdiisa jooga ku caayay shirka dhexdiisii intuu amaanay buu yidhi 100 buu la qiimeeyay hal nisaa weegi karaa ma jirto maalintaasuu ka adkaaday waxaad ka adkaanaysaa marka aad qofka xumaan sameeyey u dhaafto waad ka adkaanaysaa laakiin markaad xumuhu sameeyey xumo ugu bedesho kama adkaanayna waa mid baad noqotay barbaraan noqoteen hab ficil tamil madaxweyne ficil tama ama oday ficil tama waa ayaan daro waxaan kusoo koobayaa waxa laynaga fadhiyaa laynaga sugaya haddaynu SNM nahay iyo haddaynu calan cas ahayn iyo haddaynu dadkii dalkan dagaalka geliyey ahayn waxa laynaga fadhiyaa wuu ka badan yahay hebel baa hadlayn xidhay wuu ka badan yahay wuu ka weyn yahay hebel baan la xintamaya wuu ka weyn yahay labada nin baan keenay labada murankaasi arrin muran dhaliyay baan oday ka ahay wuu ka weyn yahay waxa laynaga sugaya wuu ka weyn yahay dib ugu noqdo arrimaha. Assalaamu calaykum.